السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan aad iyo aad baan idin salaamayaa. Waxaan sameynaynaa barashada badanta biga argumenta 22aad qaybtiisa labaad ee qaybta quiz-ka. Sida ogtiin waray waxaan soo sameynay dhammaan argumentaashka hooseeya kan 22aad laga soo bilaabo kan koobaad ilaa kan 22aad qaybooda faafayntii qaybooda quiz-ka waxaad ka daawan kartiin YouTube-ka qaybta playlist casharada oo isku aadan argumenta kasta su'aalihiisa. sidoo kale YouTube-ka waxaad ka daawan kartiin barashada luqadda afjir marka af English-ka af Talyaaniga iyo wixii kale oo lamid ah. insha Allah argumentan waxaan uga hadlaynaa alcohol ee drooge, yani qofka markuu cabsan yahay oo khamrada cabo iyo daroogooyinka kale waxyaabaha kale kadibna uu isku dayo inuu gaari kaxeeyo. okay ka bogasho wacan. Ai fini del primo soccorso è quello di chiedere subito al ferito come è avvenuto l'incidente. Ai fini del primo soccorso يعني waxqabadka ugu badan oo laga rabo kuwa gargaariyaasha ambulance yani markuu shilaa kuwa gargaarka è quello di chiedere waxa waa inay weydiiyaan subito sida ugu dhaqsida badan il ferito come è avvenuto l'incidente. qofka dhaawaca yani shilaa dhacay dhaawaca dhacay ambulance aa wacday ambulance markay imaado ma inay caawisay hore ka bilaabaysaa mise waxay ka bilaabaysaa documentigaaga iyo sida uu shilku ku dhacay. no quindi la risposta falsa. ok se un infortunato della strada ha riportato frattura agli arti bisogna dargli da bere un bevande super alcolico. se un infortunato markuu yiri qof nasiib daro ku dhacday della strada wadada yani shil ku dhacay laga hadlaa mugtay ha riportato u banaanku u keeno frattura agli arti yani lafihiisa ay soo baxaan dhibaataya bisogna waxaa loo baahan yahay darli inaan siino da bere cabitaan una bevande super alcolico khamra mid ugu adag inaan siino. falsissimo waa qof maxaa la yidhahdaa dhaawaca khamra ma la siinaayo massimo biira la siinaa mise macnaha positionka la raba in loo seexiyo ama loo fadhiisiyo loo fadhiisino. okay se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio non bisogna mai vendargli agli occhi ferito. se un infortunato marka qof dhaawaca yiri oo nasiib daro ku dhacday della strada wadada entrato ay ka galaan un corpo estraneo yani jirkiisa ama wax ka galaan in un occhio isha non bisogna looma baahna mai weligeed bandarli inaan macnaha aan saarno mara ama wax nadiifa looki ferito isha dhaawaca falso marka isha markay dhaawacanto mar yara saare haddii dhaawac saayid uu yahay oo dhalo ku jirtana hadii ma taabanaysid si dhibaato weyn aadan u geysan dhakhtarkaas. okay se un infortunato della strada ha un ferito sanguinante sporca di terra bisogna lavarla quanto prima con acqua pulito. se un infortunato marka qof dhaawac yiri della strada wadada ha un ferito oo dhaawac noqdo sanguinante dhiig baxna uu jiro sporka dhiig wasaq uu ka socdo di terra dhulka bisogna waxaa loo baahan yahay lavarlo in lagu dhaqo dhiigaas quanto prima sida ugu dhaqsida badan con acqua pulita yani dhiig wadada inaan dhaqno si dadka kale aysan u dhibsan dadka qaar markay dhiiga karkaan isku dhaxayaan la vero. Non è obbligatorio soccorrere un ferito della strada se per farlo si crea intralcio alla circolazione. Non è obbligatorio waajib ma yiri soccorrere inaan caawino un ferito qof dhaawac della strada wadada se haddii uu yiri per farlo oo la sameeyo si crea ay ka dhalan karto intralcio qabado alla circolazione zaxamaha daa ka dhalinayna macnaha qofkaas caawinaantiisa darteed qofka ma caawinayna waa ka soconayna oo dhabeermaya. no falsissimo. se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna somministrargli bevande alcoliche. su'aalahan dhan marka qofka khamraa la siinaa khamraa la marinaa waxaas oo dhan hadda aragtiin falso. okay se ad un infortunato della strada è entrato un corpo strano in un occhio bisogna vendarglielo evitando di toccarlo fin all'intervento della specialista. esatto la risposta vera. se un infortunato marka qof nasiib daro ku dhacday della strada wadada entrato un corpo strano jirkiisa macnaha waxay ku dhacaan un occhio isha ama wax ka galaan bisogna waxaa loo baahan yahay vendarlo inaan mara saan u saarno nadiifa
evitando anagoo ka fogaanayna macnaha ka ilaalinayna tokarla inuu taabto ileen il dhalo ku jirta taa xoqdid dhalada gudaha uu sii galasama fiino intervento della special ilaahay ka imaanayaan kuwa takhasuska fiican oo la dhaqaatiirta beerwan l'assunzione di bevande superalcoliche durante un pasto abbondante non compromette la facoltà di guida. L'assunzione di bevande marka aan cabno yiri superalcoolica khamra mid heerkeeda ugu sareysa durante un pasto abbondante markaan cunto adag cunno kale yani gaalada markay cuntada cunaan tusaale doofaarkii waxaad markay cunaan koob yar oo khamra ka dabageeya camaliya non compromette ma qabanaysa la facultà di guida falsissima qofka mar hadduu khamra cabo gaari wadoogiis mid toosan ma noqonayo okay falso. Soccorrere un ferito della strada è obbligatorio solo per i medici e il personale sanitario. Falsissimo è obbligatorio per tutti. qof dhaawac daarana waa inaan caawinaa oo gawaarida kale u dignaa inuu meesha shil ka dhacay qofkaas wadada kale inaa hadduu dhibaato ya marka waxay waajib ku tahay kaliya dhaqaatiirta iyo medic falso okay. Nell'intervento di primo soccorso bisogna evitare per quanto possibile che il ferito subisca ulteriori danni. Esatto, lo sposo vero. Nell'intervento howlgalka di primo soccorso in la caawiyo qofka bisogna wax loo baahan evitare inaan ka fogaano per quanto possibile sida ugu wanaagsan che il ferito qofka dhaawaca subisca inay soo gaaraan ulteriori danni dhaawacyo khasaare kale. Esatto, vero. adoo wax caawis ah hadaa dhibaato kala geysatay ka waran tusaale nina bir caloosh ka gashay birti soo bixiyaa dhahday caloosh dhanaab soo siibtina brother chi guida in stato di ebbrezza alcolica rischia l'arresto. Chi guida qofka marka uu wada in stato di ebbrezza asoo cabsan ebbrezza cabitaan waaye alcolica oo khamra rischia wuxuu khatar ugu jiraa l'arresto in la xiro. Esatto, okay. È sconsigliabile guidare quando si ha uno stato emotivo alternato. È sconsigliabile nalagulama talinayo a guidare in wadna gaari quando markuu yiri si ha uno stato di emotivo alternato markay macnaha xaalado emotional camal in xaalad guri oo kale xaalad family oo kale duruufo kale barnaamij ay kugu furan yihiin inaadan wadin gaari way fiican tahay beero. Se un ferito della strada ha riportato delle ustioni alla busta conviene coprirle con materiale pulito possibilmente sterile. Esatto, vero, ok. Se un ferito della strada ha un'abbondante emorragia esterna bisogna solo medicare la ferita. Falso è. Lo stato di shock può essere causato da un forte dolore. Lo stato di shock qofka inuu shock noqdo isku dhaxaya può essere waxay ahaan kartaa causato inay sababto ama ay sabab u noqoto da un forte dolore qofka inuu damqado oo xanuun badan uu dareemo. Esatto, vero. È opportuno per il conducente che accusa segni di stanchezza raggiungere le più vicine piazzola di sosta e riposare. Esatto. È opportuno way gudboon tahay yuri per il conducente darawal che accusa segni oo isku arka calaamado di stanchezza daal raggiungere inuu tago la più vicina mid ugu dhow piazzola oo piazzada macnaha meesha gaariga baakinka la dhigay di sosta e riposare kadibna inuu nasto. Esatto, marka daal iska dareentid meesha baakinka kugu dhow tag gaariga baakin naso haddii kala wadada ka baxeen. L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di caffè amaro, no? Caffè haddaa cabto waxba ku dhimaayo caffè waa la cabaa waana loo wada gaaray. In caso di incidente stradale il soccorritore deve somministrare farmaci alla vittima se la stessa non ha specifica competenza medica. No, falsissimo. Okay? In presenza di un ferito in stato di shock occorre fargli bere piccole quantità di superalcolici. In presenza di un ferito marka aan la kulno qof dhaawaca in stato di shock oo shocksan occorre waxay ahaanaysaa farli inaan ka dhigno bere mid cabaya piccole quantità cadad yar oo khamra superalcolici. Falsissimo. Okay?
Durante un intervento di primo soccorso, se l'infortunato ha una ferita sanguinante, si devono togliere subito gli eventuali corpi estranei in esse presenti e successivamente coprire la ferita. Okay? Falso è perché qofka marka uu gubto ustione waxaa la ustinione gubasho waa la dab oo dharna macnaha uu ku dhigo kale inaan ka fujino waxa falso ok. Lo stato di shock si manifesta sempre con un forte aumento della temperatura corporea. Lo stato di shock qofka inuu shock yahay si manifesta waxaa lagu garanayaa sempre mar kastaba had iyo goorba con un forte aumento zaaid della temperatura corporea. qofka inuu zaaid u neefsado shock yahay camal no falso ok sempre no. Se un infortunato della strada è cosciente ma ha avuto un trauma della gabbia troscica con ferite visibili e profondo, bisogna comprimere subito con un vano pulito. La risposta è vero, qofka markuu dhaawac gaaro jirkiisa qaybta kore oo dhaawac la arkayo kale ama dhalay sarta ama biray sarta ama jab yaroo bira ay iska foqsato hilibkiisa waa inaa mara saartaa nadiif ah wax nooca something like that vero. Nell'intervento di primo soccorso bisogna allontanare in ogni caso il ferito del posto in cui si trova. Falsissimo è. Nell'intervento howlgalka ama macnaha gargaarka di primo soccorso bisogna waxaa loo baahan yahay allontanarsi inaan ka fogaano in laga fogaado in ogni caso xaalad kastoo jirto il ferito yani marka aan aragno qof dhaawaca hadduu rabo khatar kasta ku sugnaada anaga waa inaan ka fogaana oo ka dheeraana camal posto in cui si trova meesha uu joogaa ma uu yaalo no falsissimo. L'assunzione di eroina o di cocaina può compromettere la facoltà di guida. L'assunzione marka aan qaadano di eroina drogadan la yirahdo eroina o di cocaina ama cocainada può compromettere waxay caqabadayn kartaa ama macnaha dhibaato u keeni kartaa la facoltà di guida gaari wadowga. Esatto. Dopo un incidente stradale il soccorritore che interviene deve presentare assistenza agli infortunati secondo le proprie possibilità e conoscenza. Dopo un incidente stradale markuu shil dhaco yiri il soccorritore caawiyaha oo gargaarka che interviene kaasoo macnaha howlgalka caawimaad faraha la galaya deve presentare waa inuu ahda assistenza caawimaad dhammaystiran agli infortunati kuwa dhaawac soo gaaray secondo la propria possibilità sida asiga ugu wanaagsan oo ugu dadaalkiisa meesha ugu sarreysiya aqoontiisa esatto vero. Durante un intervento di primo soccorso non bisogna mai toccare il ferito se non è ancora arrivata la polizia haddii macnaha aan la kulno qof dhaawac wadada yaalo anaga inaad taabano maha kula ilaa booliiska ay ka yimaadaan barke falso. Soccorrere un ferito della strada è obbligatorio per legge. Soccorrere inaan caawino un ferito qof dhaawac della strada wadada obbligatorio waa waajib waana qasab per legge sida sharciga qoraayo okay qaanuunka beero. Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna è opportuno, se possibile, mettere il ferito in posizione seduta o sdraiata in attesa che arrivano i soccorsi stradali. Se un infortunato haddii qofku yiri della strada wadada è un'abbondante emorragia lafay ka soo baxda mise wax noocaas esterna bannaan è opportuno ay fiican tahay se possibile hadday suurtagal tahay mettere inaan u dhigno il ferito qofka dhaawaca in posizione seduta inaan fadhiisino okay o sdraiata ama macnaha inaan seexino qof sariir isbitaal ku seexanayo kale qaabku seexanayo mar aanu seexino in attesa anagoo sugayna che arriva i soccorsi esatto vero madaxa waxa u gelinaya seexnayno. Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna fasciargli la testa. Se un ferito della strada haddii qof dhaawac wadada aan kula kulano yiri in stato di incoscienza mir beelsan bisogna waxaa loo baahan yahay fasciarle inaan ka xirno la testa madaxiisa inaan maraacdo dheer ka xirno reer aakhirada ama
perché falso è, ok? Se un inferito della strada ha riportato frattura agli arti, bisogna chiedergli di muovere per valutare il tipo di lesione. Se un infortunato haddii qof dhaawac uu ama nasiib darro ku dhacday dala strada wadada a riportare frattura agli arti laf ay ka jabtay ama wax noocaasa bisogna waxaa loo baahan yahay di muovere inuu sameeyo dhaqdhaqaaq per valutare si uu qiimeeyo il tipo di lesione wax gaaray run miya falso ok maasha allah asxaabta qiimaha qaaya badan casharkeena saas ayaan ku dhamaynay hadda waxaan fiirinaynaa natiijada haddaa wada hore tahay muuqaalka like noo saar natiijada fiirinaynaa okay maasha allah asxaabta qiimaha qaaya badan si qurux badan ayuu noogu dhamaaday argumenteena sidii muuqataba waa argumentaha 22aad qaybtiisa labaad qaybta quiz-ka insha allah billahi alkariim waxaan filaynaa wax badan ka wada faa'iidi doontiin argumentayaasha casharadooda isku aadan su'aalaha argumento kasta inta su'aal uu ka kooban yahay qaybta playlistiga ka daawan kartiin mid si macnaha argumento kasta oo idinku adag u barataan insha allah billahi alkariim guuleysta waxaan rajaynaa guuleyo gabadha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.